هجاء سود وهذا أصحابته ستوصل أياد بقى عبد الرزاق عطوش وداونا إنسان سيدا قرار وقررنا موضوع كهذين ووركي ودم بمحكمة أديس أبابا إيمان الله وركاني عبد محمد عمر مدحويني وريد ولديقان كصومالية إثيوبيا iyo asxaab kale oo ka tirsan maamulkiisii dadku mahadsantihiin sida aad tooska ugu taxantihiin bogayga horeyna waa anigu u sii shaaciyay oo wargelin ahaan u soo dhigay bogga Cabdirasaaq Catoosh inaan mowduuca ka hadli doono inta aan ogahay iyo wixii maanta dhacay maxkamadda Addis Ababa ka dhacay ayaan idinla wadaagayaa dabcan sidii loo balansanaaba horey markii la qabtay madaxweynihii hore dowladda deegaanka iyo ركلا الله حرناها ما أنت أي محمد كسر المقضي ما أنت روحي رعفانكي وقات عبد محمد عمر يدكي كلا الله حرنا قصة سنة إن ضمانة هالوسود دايو سووا بناك جونا دعودي سعي سعته أيامات الذي سنة إن أخر من جعله يرتضد كلا كاري عبد محمد عمر محكمة ضمانة إيمان اللي شافه عبد محمد عمر أو قف كوادها أو ها مدعيني ولا دولة ديجانك عبد الرزاق صحانة أو ها حفيزكي قرب جوجتا مدحك أها هورينا حلال كلا دوان uga soo qabtay dowladda deegaanka sida isagoo mar noqday meeyarkii magaalada Jigjiga Raxmaan Maxamuud Haybe oo iyadana ahayd wasiirkii haweenka muddo badanna ku jirtay xisbiga dowladda deegaanka shacabka Soomaalida Itoobiya la yiraahdo iyo waliba Farxaan oo isagu shalay la qabtay Farxaan wuxuu ahaan jiray taliyihii hore ee booliska ee dowladda deegaanka Soomaalida iyo Suldaan Khayre waa la sii daayay waxaana la sheegay inuu fasaxan yahay maanta ujeedada waxay ahayd bal in codsiga ay gudbisteen xubnahan ee ahaa in damaanad lagu sii daayo oo banaanka ay joogaan dacwadoodana la sii wado oo xabsiga lagu celinin maxkamaddu way ka diiday taasoo macnaheedu tahay racfaankoodii ama dalabkoodii waa la diiday dib baan xabsiga loogu celiyay waxaana loo ballamay bisha September 4teeda waa bisha soo socota ee 4teeda in maxkamadda marka ay yimaadaan dadkii dacwad ogayaasha ahaana waxa la siiyay fursado ay dacwadahan ku soo ogaan arrinta xusida mudan waxay tahay waxyaabaha loo haysto madaxweynihii hore dowladda deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar iyo dadka kale la xiran waxa weeyaan shaqaaqadihii ka dhacay 4tii bishii August magaalada Jigjiga sida kaniisadihii la gubay bilalqadii magaalada ka dhacday iyo waliba dadkii la dilay sida hore loo sheegay ma ahan dambiyo hore u dhacay waa bishii August 4teedii rabshadihii Jigjiga ka dhacay waxyaabaha lagu eedeynayna waxa ka mid ah inay soo agaasimeen koox heega la yiraahdo oo dhibkan geystay marka hadan ku noqdo waan idin mahadcelinayaa horta inaad si toos ah bogga ugu taxantihiin asxaabtiina la sii wadaaga soo share gareeya wixii fikradahan halkaas waad ku reebi kartaan xubnaha maanta la keenay maxkamadda magaalada Addis Ababa waxay kala yihiin Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynihii hore dowladda deegaanka Soomaalida Cabdirasaaq Saxane madaxii xafiiska qurba joogta horeyna xilal badan u soo qabtay Raxmaan Maxamuud Haybe wasiiradii haweenka ee dowladda deegaanka iyo waliba Farxaan magaca kalma hayno waa Farxaan oo ahaa taliyihii booliska dowladda deegaanka oo isagu shalay la soo qabtay waxay maxkamaddu sii daysay Suldaan Khayre oo isna horey wasiir u ahaa oo waxa lagu waayay ujeedada maanta maxkamadda dhageysigeeda waxay ahayd in damaanadii ay soo gudbisteen ama codsigii ahaa Cabdi Maxamuud Cumar iyo dadka kale ay soo gudbisteen in damaanad lagu sii daayo oo xabsiga lagu celinin oo iyagoo banaanka jooga dacwadooda la baaro oo ay socoto waa laga diiday taasoo macnaheedu markii dambe noqotay in xabsiga dib loogu celiyo arrimaha ay ka maanta dadka meesha la xorkeenay ee meesha ka sheegay waxa kamid ah in qaarkood ay xanuunsan yihiin oo cudurka sokorta kale oo macaanka ay qabaan halka qaar la leeyahay dhig kale qabaan oo dawooyin ma haystaan waxyaabaha ay ka cawdeen waxa kamid ah qololkoo ciriiri ah qof goob jooga ahaa ayaa ii xaqiijiyay arrimahaas oo dhan inay cabasho ahaan u soo gudbiyeen waxaana meesha looga sheegay in xabsiga ay ku noqonayaan wixii dawo iyo rabitaankooda aan xabsiga lagu siin doono waxaan markale ku celinayaa dacwadaha dadkan loo haysto ma ahan dacwado horey u dhacay waa dacwadihii 4tii Agoosto rabshadihii Jigjiga ka dhacay wixii dhacay sida kaniisadihii la gubay bilalqadii dhacday dadkii la laayay barakicii dhacay qodobadaas weeyaan qodobada lagu haysto Cabdi Maxamuud Cumar iyo dadka kale ee la xiran waxaa lagu ballamay 4 September bisha soo socoto maanta waa 30 waa 5 bari kadib in mar kale maxkamadda la keeno wad ku mahadsantiin sida bogayga ugu taxantihiin hadba wixii soo kordho ee aan ogahay yaan idinla wadaagi doonaa wixii fikrada ahna waad ka dhiiban kartaan marka waan salaamaya ku taxnaada bogayga Cabdirasaaq Catoosh